fadeexadii sirdoonka CIA-da Mareykanka ka qabsatay dalka Singapore. Waxaa jira fadeexad caan baxday oo CIA-da Mareykanka ka qabsatay dalka yar ee Singapore markii mid ka mid ah sirdoonkooda oo howl basaasnimo ah ka waday gudaha dalkaasi la qabtay kadibna lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah. Washington ayaa markaa iska diiday inay sinaba ugu lug leedahay falkaas. Si loogu cadeeyo fadeexadda ayaa ra'iisul wasaarihii xilligaas ee dalka Singapore Lee Kuan Yew waxa uu xafiiskiisa isugu yeeray saxaafadda madaxa bannaan isaga oo haya dukumeentiyo sir ah oo laga helay basaaska CIA-da ee lagu qabtay Singapore. Waxa uu ku goodiyay in uu faylashaasi saxaafadda horteeda ku soo bandhigi doono haddii Mareykanka uusan ka laaban hadalka dafiraadda ah. Markii ay xaaladda adkaatay, CIA-da ayaa weydiisatay Mr. Lee in uu ku soo wareejiyo maxbuuskooda u xiran, taas beddelkeedana uu qaato lacag dhan 3.3 milyan oo dollar oo si qarsoodi ah loo siin doono. Mr. Lee ayaa iska diiday lacagtaas wuxuuna ku tilmaamay aflagaado iyo bahdil. Washington ayaa ku qasbanaatay in ay qirato basaaska in uu ka tirsan yahay sirdoonkooda iyo waliba dukumeentiyada la hayo in ay iyagu basaasayeen. waxaana arrinta qirtay xogiyihii arrimaha dibadda Mareykanka ee xilligaas Dan Tusk oo warqad raaligelin ah u dirtay Singapore. Ra'iisul wasaarihii Singapore ayaa wuxuu yiri way adag tahay in la gato damiirka bulshadan oo isku xiran. Ra'iisul wasaare Lee waxa uu maalintaas jeediyay khudbad weyn oo ilaa maanta dhagaha CIA-da ka sii qaylinaysa. waxa uu yiri Mareykanka waa inuu fahmo nooca dadka uu la macaamilaya ee jooga Singapore. dalkan madaxdiisa ma aha sida NGO Dien Dam Vietnam ama Syngman Rhee koonfurta Korea. dalkani ma aha iib. intaa wixii ka dambeeyay dunida Lee waxay u aqoonsatay aabaha Singapore. Singapore waxay kala horeynta uga jirtaa dalalka ugu dhulka weyn dunida booska 177. sanadkii 1960kii Singapore waxay ahayd magaalada qaska iyo fowdada. bulshadii ku noolaa xilligaas waxay gebigoodba ku sugnaayeen jahli, faqri iyo musuq. balse sanadkii 1965kii ayaa wax walba waxay isu bedeleen dhinaca kale. sanadka ayaa waxa loo aqoonsaday bilowga taariikhda casriga ah ee Singapore. la wadaag sheekadan saaxiibada.